saxaabiyadda 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 waa markii ugu dambaysay ee aan ku dhahayo waxaa tahay saxaabiyad waxaana kaa rajaynayaa inaad noqoto saxaabiyad. barnaamijkii aan kugu talagalay bisha Ramadaan ee ciwaanka aan uga dhigay waxaa tahay saxaabiyad. Allah subxaanahu wa tacaala fadligiis maanta ayuu inoo dhammaaday, keliyana wuxuu iga ahaa dardaaran iyo inaan ku xasuusiyo halka aan ka soo jeedo, waayo mar walba waxaan jeclahay ummadda Nabiga sallallahu calayhi wasallam inaan wanaag u arko. haddii kanaalkan iyo barnaamijkan ay ku anfaceen waxna ka faa'iiday, waxaan kaa codsanayaa inaad la wadaagto asxaabtaada oo aad sii faafiso si ay dhiirigelin iigu noqoto. mar kale waxaan kaa codsanayaa inaad u ducayso Adham Sharqawi oo ah qoraaga qoray buugga lagu magacaabo Anti Aydan Saxaabiyah, adiguna waxaa tahay saxaabiyad. waa buugga aan kaga soo diyaariyey barnaamijka aan ciwaanka uga dhigay waxaa tahay saxaabiyad. dhowaanna waxaan filayaa isagoo dhammaystiran oo af Soomaali ah inaan soo saaro. aniguna waxaan kaa codsanayaa inay ii ducayso. saxaabiyadda buuggan ku muuqdo ee magaciisu yahay Geesiyaal Taariikhda Galay waa buuggaygii ugu horreeyay ee aan soo saaray, waana buug taariikhi ah. gudihiisa waxaa ku qoran qaar ka mid ah taariikhda geesiyadii iyo halyeeyadii Islaamka. waana qaybta koowaad ee buugga. qaybta labaadna waxaan rajaynayaa inay soo baxdo mar dhow. qaybta koowaad ee buuggaani way daabacan tahay, haddaa u baahan tahayna waxaa ka heli kartaa lambarkan ku muuqdo. magacaygu waa Moxamed bin Faarax, halkanina waa Fahamka Nolosha. waxaana kuu rajaynayaa kheyr iyo wanaag iyo inaad noqoto saxaabiyad, sidoo kalena aad dhasho geesiyaal diintooda iyo dadkooda wax taro. waxaa tahay saxaabiyad ee ha iloobin midaas. waxaa tahay saxaabiyad ee ha iloobin midaas. waxaa tahay saxaabiyad ee ha iloobin midaas. waxaa tahay saxaabiyad